الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ركضت شذو ننمو أورن كرواية سومالي ترى تلادي كسب حداي حكومة جمهورية سوماليلاند مانتا شركة دعاية دقها إمرجنسيها وسير كايدين دقسية فاهينا وحي هرو صار دعينا كور رمي وحن حكومة كجا وكيلنا هاي أنو هالكن يسوع تاجني وأنا وزير جافادي نلو إجمدي إنه قان كي ما أنت كسب حي حكومة جمهورية سوماليلاند إنه ندقسينه شعبنا حكومة جمهورية سوماليلاند كوا نبض جعل كوا وناقة جعل هي كوا حمانتي علادة جعل لبضوا هالكن واحد يسوع تاجني مركي للرجوي ثلاثة ay soo noqnoqotay waxay noqotay booku taala Soomaaliland aaga ceelaf weyn iyo fadhigaab iyo darar weyne iyo inay wax ka dhici jireen wixii ka dhacayay dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyay 5 sanadood ee ugu dambeeyay boog bay ku noqotay Soomaaliland waxay noqotay wax qarankan dibindaabiyo iyo magac xumo iyo dhimasho iyo khasaare naf iyo maalba ah oo maalin walba taagan inta hawsha isku haysa ay isugu timaada ee khasaare iyo dhibtu u gaar yihiin maaha inta kale ee bahwadaagta la ah ee deegaanka la leh ee qaranka la lana waxay ku noqotay huq iyo maalinkan maanta naxdin maadaama ay naftoodina u tudhi waayeen nafaha kale ee reer Soomaaliland iyo magaca Soomaaliland u tudhi waayeen xukuumaddu waxay go'aansatay sida wasiirku sheegay in gacan bir ah wax laga qabto inaan naxariis dambe loo gelin mar haday tashan kari waayeen in loo taliyo culimaan la isugu yeedhayn uquul kalaan la isugu yeedhayn kharash dambaan lagu gelayn wax aynkaas waxaanu gaarsiinaynaa dadka wanaaga jecel reer Soomaaliland dhagtu taagan tahay inay xukuumadda go'aanka qaraar qaadatay laguna taageero wixii wanaaga iyo dadnimada iyo islaamnimada jecel inay ku taageeraan ayaanu halkan soo taagnay waxay Soomaalidu ku mahmahdaa dab munaafiq shiday muumin baa ku gubta loo aaba yeeli maayo oo naxariistii hore ma jirto oo kana sharaf leh iyo kana magac leh iyo kana caynkana ma jirto waxa weeyaan mar haddii ay 5 sanadood muddo ku dhow imaka waxaas rafanayeen waa loo talinayaa marka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka xukuumaddu gaadhay haday golayaasha qaranka tahay haday waxgaradka tahay haday culimada diinkii hore galay tahay haday shacabka wanaaga jecel tahay mid guda ku nool iyo mid dibad ku noolba in xukuumadda la isku barbartaaga arinta oo aan xal kale loo haynin ayaanu idin deeqsiinaynaa halkan ay soo taagnay kagana wakiilnay xukuumadda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.